السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريها اسمين أرق وإذا السلام يا دمانتين با سو دوادا سو فريستا قفك يقول عصبه سكراب كي يلاك تيسار نادر الخير الله قصية قفك كلاو هلو تشوغي وشارتيو كومنتيجي يلاك تواديقه waxaan rabaa inaan idiin bilaabo haddaa ka heshaan yes haddaa ka heli weydaan no igu soo qora waxaan rabaa inaan idiin bilaabo history wiil iiga sheekeeya historygiisa oo ku saabsan ka bilaabma ilaa iyo 88 markii dagaalku ka dhacay Hargeysa markaa in yar baan idinka sii sheekeyn doonaa insha Allah dhammaantiina soo fadhiista waxa inan baan sheekaysanay maalmaha ka mid ah waxaan ka sheekeeyay adigu dagaaladii iyo colaadaha iyo waxaasaan ka sheekaysanay dadna waxaan ka sheekeeyay bari aan Kismaayo joognay wixii dhacay iyo sidii loo xasoo ka wuxuu iga sheekeeyay sheekadii isaguna maalintii Hargeysa la soo galay ku dhacday inanka wuxuu Hargeysaan deganaa Hargeysaan ku dhashay Hargeysaan weliga jiray Hargeysaan ahaa buu yidhi reerkaygu reer Hargeysa ahaayeen wuxuu yidhi waxaanu lahayn waxa loo yaqaano bacadlaha dadku waa garanayaan bacadle alaabta dharka iibiya ayaanu dahayn buu yidhi Hargeysa markaa bacadlayaal saasay u safan yihiin dib waynu garanaynaa wuxuu bacadlaha anigu waa dhalinyarada markaa isagu 15 16 ah weeye markaa markay deyntaa yihiin waa majuur habeenkii baan seexdaa buu yidhi iskuul baan dhigtaa anigu laakiin habeenkii baan seexdaa meesha iyada ah habeenkii markaan seexdo waxaan subaxii walaalkay ii yimaadaa walaalkay weyn bad meesha haya oo guri leh wuxuu habeenkii buu ii yimaadaa subaxii buu ii yimaadaa dharkaygu ii keenaa iskuulka iyo quraacdayda waxa soo cunaa halkaas ka baxaa iskuulkayga iska tagaa guriga baan iska tagaa hadhowna waan soo noqdaa buu yidhi fiidkii wixii halkaa markay sheekadu maris maalmaha ka mid ah ayaa dagaalkii ku bilaabmay SNMtii soo gashay buu yidhi SNMtii markay soo gashay ayaa waxaa dhacday wixii dagaalkii baanu maqalay diigidam rug jagdig wixii wax maxrash baa maxaa dhacaya waanu yaabnay buu yidhi saas dhacdana dee ma aqoon wuxuu yidhi markaa waxaa dhacday buu yidhi askartii dowladda qaarna la dagaalamayeen buu yidhi SNMta ayaa kuwii kale xiriir ka soo yaaceen buu yidhi baabuur bay isku soo buuxiyeen iyagii naagahoodiiba wuxuu yidhi waxay soo toos u soo abaalamay bacadlayaashii wuxuu bacadlayaashii way ku bilaabeen rasaas fora waagii in la seexanayo meesha moota qof kale uu ogyahay fora adiguna for xunya wuxuu ku dhacay for wuxuu waanu yaabnay wuxuu meesha boobeen wuxuu yidhi bakhaarka inta saa u soo galan markay saa u soo galan bacadlaa dharkii baa dee saa u sursuran sooma goyaal waxaa jiray buu yidhi daa'uus la odhan jiray oo laba nafar ah anaa mid haystay oo la qaxay waan xasuustaa oo wuxuu waaweyn bay saa ugu soo damsiyaan buu dam afartan konfo waxay gaadhay ku tuuraan afartan maxay ku kala garanayaan dhowto saade isku layn maayaan iyo haday doonaan isku laynayeen buu yidhi wuxuu yidhi meel walba gal fura dam wixii baabo goyaashaas bay soo rogaano dukaan walba 6 go ay ka buuxsadaan wuxuu yidhi kaygii bay yimaadeen fur waliya xunka fur waa afray buu yidhi wuxuu yidhi markaan daad u furay dhirbaaxay qaadeenoo way ga salawaariyeen banaanku ii tuura inaan yar hilif halkaasaan banaankaan istaagi wuxuu yidhi way gurteen wixii markii ay naga faaruqeen wixiiba buuxsadeen meeshiiba mariyeen ayaa wuxuu yidhi dhalinyaradii dee markaa wada yaryareedo wuxuu yidhi markaa bahgooba reer kale aanu saaxiibnahay buu yidhi wuxuu yidhi madiba qoryaanahen ina keena yaacnay xakiima islan soo gashay ina keena yaacnay aynu soo daawanay marka anagu buu yidhi dagaal iyo waxaa ma fahansaninay waxaanu u yaacaynaa keliya inaanu soo aragno nimankii indhacasaa ijmada ah wuxuu yidhi xagga idaacadda miyay ahayd maaqaan meelahaasay kasoo galeen buu dhinaca kasoo u yaacnay waa cararay waanu orodnay waa 8 meelaha wuxuu waa cararay duhurkii meelaha kowdii markay ahayd baanu meeshii gaadhin nimanku joogeen saa waa niman caynkaas wuxuu saa u ridayaa naga yaaca wuxuu yidhi waxay qaati ka joogeen dadkii magaalada wuxuu yidhi saastu saas isu dhaafaysaa waxay gabcahan isqabsanaan waryaanka yaynaan kala rabin wuxuu wold meesha waxa ka dhacday dagaalka iyo waxay cabaran kan dawana ku inay haddana ina carasiya dib baan u soo noqonay buu yidhi dib markaan u soo noqonay baan bakhaarada ku noqonay haddana dib baan u soo bacalayaashii baan masiirooyo wuxuu yidhi dharku suu daadsan yahay adduunka aad moodid buu dharkayna ilaahu wa inna ilaihi raaji'uun 10 dee askogol dharkii laga dhigay wixii la qaadan karay la qaatay wixii kale dhulka lagu soo daadiyay bakhaarada iyo saas u garaacay hanaaba hadhow haddana nidhi wariyaan markaa wuxuu intaan wixii aan markaan SNMta soo noqonay ayaa nin meel ka dagaalamaya oo SNMta wuxuu xaggan koonaha xiga
ayaa bahal xabadii qaadatay buu yidhi waanu aragnaa saasaan u eegnay buu yidhi alla way qaadatay alla way ku dhacday wuu taagan yahay wuxuu yidhi caloosha ka dhaco saasay caloosha dhulka ku dhacday caloosh markaasaa u dhacday warkay waa calooshi walaalala halkaa tiri dee wuu arkaa inaanu noolaanaynin marka waa xay nolosha nafta ku wada jirta calooshii dhamma intuu jiro halka tuuray buu yidhi hargeysaay adaan kuu dhintay dhulkana wuu ku dhacay buu yidhi inuu dhintay wuxuu yidhi qalbi jabkii aanu qaadnay inuu ninku dhintay iyo inuu marka ka baxday iyo inay de muxuu yidhi caloosha soo jariyey calooshaasa banaanka taala baldhaq halka ku siiyey buu yidhi hargeysaay adaan kuu dhintay intaasa ka soo baxday buu yidhi ninkiina qablax saas u dhacay waanu ka dulboodnay war hajaay warina carar siiyaay wixii horta markaasaa nafta nagu soo noqotay waabaa noo beri waana kayn bakaaradii qabanay waanu soo yaan meeshii baanu nimi buu yidhi meeshii baanu nimi markaan halkii nimi haddana meeshii waa cidla dunidii wixii waa gool wixii qiiq baa qabsaday magaaladiiba meel colaadeed waa iska garanaysa dee wixii rasaastii wixii baa saa laysugu xoohigay ina madaxii waryaadhaheen inan baa naga yar hooraan waryaal kana yacni guryo qabanay wixii halka baan yacni wixii goor la baayay oo ay fiid tahay waana wixii dhignayna gaji xitaa waxuna garan mayno xitaa bal bakhaarada lacag ka dayda garan mayno wuxuu ay fiid tahay waanu bas beelay bas waanu tabcaanahay ayaa buu yidhi wuxuu yidhi ayuu wuxuu yidhi aanu guryo tagnay inamada guryahoodii baan tagnay buu yidhi anigu reerkaygii mawjiba maba garanayo buu yidhi maba raadin dee meel wax la raadiyaba maaha wuxuu inamada gurigooda tagnay reerkii yalow laagana soo yaaca waryaana waa laysa wixii waanu qaxnay subaxii baanu qaxnay geed deeblaanu tagnay geed deeble markaanu tagnay subaxii labaad baanu markaanu geed deeble tagnay 2 cisho kadib meel tagnay dadkii ku soo urureen dadkiiba halkaa degeen magaaladii soo markaa wuxuu maskaxdeeda waxa ku dadka ku jirta waa la noqonayaa kolay salaamta laga saaraya magaalada maskaxdeena gashta bideel aan cirro baan nahay oo dadkii hadal markaa halkaa aynu degno oo ku sugno inta la kala saarayo wax ay wax kala baxayaan ayaa wixii madadba diyaarada lagu soo kiciyay wuxuu yiri meel aanu baalbaalanay meel aanu dadkii buulayaan soo saarnay waxaana balbalooyin yariyaan dhirtii wuxuu yiri wixiiba wuxuu yiri dam wuxuu midna kamati wuxuu reerkii iyo annaga boholaanu ku daadanay boholo wuxuu dadkii dam iyo rax baa la gasiyay meesha ilaahu buu yiri malaal 100 qof baan ka baxnay meesha waanu yahay wuxuu yiri gelinka hore waa noo soo qodaa gelinka waa noo soo noqotaa magaalada qiiqa iyo damta ka baxaysa buu yiri ee diyaaradaas ku hayso wad fajacay wuxuu waanu yahay halkii wala isugu yimid geed dawlad meel loogu hayna yacsiya dadkii horta markaas ay qoosteen buu yiri dadkii waaweynaa waxay dhageysta wax allaale wax haray oo haray ma jirtee ina cararsiya wuxuu ka baa naga sii go'ay waanu sii silcnay mariya qof wala marada u sito waxaan misito wuxuu magaaja haraadba silicba saxariirba wuxuu moohinba mayawba wuxuu adduunka ilaahay iyo qiyaamaha haduu jiro wuxuu dhalinyaranimada ku baxsanaynaado marka qaar kood anaga dee gaajada iyo haraadka waxaan xaraamay baa nala tabi dagaalkani waa badaha soo gashay heesan wuxuu baxaan iska marmarka qaar kood laakiin buu dadka waaweynay dee wax kala garanaya dadka weyn aruuraha wata iyo islaamaha iyo odayada waa wada ka xawiidi saasay dibinta wada ruugayaan waanu daalugayno waxaan tagnay dulcad bay tageen dulcad markaanu tagnay buu yidhi baan halkaa la joogay reerkayagii buu marka aniga abtigay baa askari ahaa abtigay baa meeshii yimi bakhaarkii dadkii reerkayga qaxwi boormay qabteen wuxuu yidhi oday abtigay adeerkayaa yimi oo wuxuu yidhi adeerkay baa yimi abtigay oo wixii bakhaarkii yimi wuxuu arkay inan yaroo ileegoo shaadh uu igu yaqaanay sito oo ku dhintay meeshii halkii buu inankii baco iyo dhar iyo wax dul saaro siyaabisad uu cunno meel ugu leexiyo oo iska tago wuxuu ku yidhi reerkayga wuu dhintay inankiini waa dhintay ka samraa wuxuu yidhi waxaankaygii baa la cunay agaskaygii baa la cunay waa lay kaafmay waa lay axmay laakiin hooyaday baa samri weyday buu yidhi halkii baan joogay buu anigu wuxuu dad iyo cid raadi iyo meel loo qaxay dhaliyo iska taqarrud ma garanaya meel loo qaxay iyo reerku xaqi xiboor ma wariga ma arag wuxuu yidhi reerkayga waan iskala noolaa inama saaxiibadeena marba shaar kala bedelna marba cabaar bashaar mid gashadaayo waxa iska soo silcino waa iska soo saxan wuxuu yidhi active baan waxbaan u shaqaystaayo meelahaas waxa yar oo gari ka dhifleeyayo aan inamadayo wuxuu adigu ninkii wuxuu yidhi halkaas ayaan muddo joogay buu yidhi hooyaday buu yidhi ayaa waxay gaadhay buu yidhi heer ay nin faaliya ah gelinka horena u tagto tuulay degan yihiin saan uu sheegay tuulo uu magaciigu sheegay ilaa magacii
oo boorem aanu dhoweyn oo qofka subaxii ka yimaada tuulada boorem wuxuu yimaadaa adigu duhurada wuxuu halkaasi wiigii 2 jeer 3 jeer u timaadaa ninkaa oo iga faalisaa buu yidhi markaasuu inankaagu waa nool yahay inankaagu meel dad badan buu joogaa inankaagu waa nool yahay inankaagu meel dad badan buu joogaa wuxuu yidhi markaasaan la okay ay saantu noqota maantana iyadii ma samri weyda dadka iska samirday qof wale wuu samra qaybta kale insha allah idiin soo gudbin doonaa oo tan waa party 1 haddaad ka hesheen iisoo sheega way socotaa sheekadu iyadoo weliba tan kasii waarane waxaan see la yaabay dee innaga maanta raggeennii saasuu u lahaa intuu calooshiisa tuuro hargeysay aduu kuu dhintay waxyaala waan ooyey marka uu sheekada iga shekeynayay wallaahi waan ooyey sababtu tahay waxaan ka ooyey ninkii maalinta u sadqeeyey naftiisa dalkiisa ama burco ha ahaato ama hargeysa ha ahaato ama ceeriba ha ahaatee oo maanta dad wax magarata ahi saa isugu lisayaan oo ay saa u kala fadhiisiyeen ayaan wallaahi ka qayrooda waa markaan waan ooyey cabaar baan ka aamusnaa inankaa markuu igu yidhi nin baa intuu calooshiisii jaray hargeysay aday kuu dhintay yidhi wallaahi waan qayrooda laakiin dadkeennaan dhiga lahayn aad baan idiin salaamayaa waynoo insha allah next time